استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سؤال يرى كوبن haddii aan maanta kugu yidhaahdo allihii ku abuurtay ee ku arsaaqa adiga uu ku jecel yahay ee adigu ilaahay ma jeceshahay maxaad igu jawaabaysaa? miyaad la yaabta su-aashaas? xaqiiqadu waxay tahay wax lala yaabo kumaan weydiin, laakiinse su-aal xaqiiqaa baan ku weydiiyey. haddaan iminka ku yidhaahdo hooyadaa ma jeceshahay, walaashaa ma jeceshahay, xaaskaaga ma jeceshahay, carruurtaada ma jeceshahay, markiiba waxaad la soo beedaysaa haa waan jecelahay, laakiinse la yaabi mayso. laakiinse haddaan ku yidhaahdo ilaahay ma jecesha adiga ku jecel yahay waad la yaabshaa soo maha. ku soo dhawaada muuqaal aan doonaya inaan wax yar kugu dhibciyo oo xoogaa yar kugu fahansiiyo, laakiin xaggaaga waxaan kaa codsanaya inaad muuqaalka like inoo tiraahdo oo inoo sheer garayso. tusaale yar haddaan ku siiyo, habeen iyo maalin waxaad aragtaa ibni aadan ka cabanaya aqalka kiradiisa oo bil kasta la weydiinayo, leyrka oo lacagta bishii lagu soo dalacay, iyo biyaha oo lacagta bishii lagu soo dalacay, iyo maciishadii oo yar kacday. bal ka warrama haddii ilaahay ku odhan lahaa bil kasta araga indhahan lacag baan kaaga qaadaya, sidee baa xaalkaagu noqon lahaa? indhahan wax kasta aad ku arkayso adduunyadana aad ku daawanayso, haddii bil kasta lagaa weydiin lahaa lacag maxaad samayn lahayd? sidoo kalena maqalka dhagahan iyo dhadhabka carabkan iyo gacmahan kuu shaqaynaya habeen iyo maalin, iyo lugahan habeen iyo maalin aad ku soconayso, haddii bil kasta lacag lagaa weydiin lahaa maxaad samayn lahaa? ilaah baa ku dhaashay. waa su-aalaan doonaya inaad ka shaqayso oo naftaada weydiiso. haddaba ilaahay isagoo xubnahaas bilaash kugu siiyey lacag iyo duunyo kaagaga dooni maaye, keliya wuxuu ku yidhi iyo adeec inaan ahay allihii ku abuurtay, laxaadkan ku siiyey, araggan ku siiyey, iyo adeec oo cibaado la kaalay. waa intaasoo keliya. mid kale haddaan kugu caddeeyo, ilaahay aayaadka cadcad ee u haysto inuu adiga ku jecel yahay waxaa ka mid ah maalin kasta waad dambaabtaa, haddana ilaahay kaama ficil qaato, isagoo awooda mar keliya wadnahan maarata shaqaynaya inuu joojiyo. gebigaagaba naftaada yara kibraysa maarata, waxaa kugu filan in wadnaha yar dhaqaaqaya maarata la joojiyo, bartiisa lagu joojiyo, oo ilaahay amar siiyo yidhaahdo kun fayakuun oo keliya, hata wax kale uma baahna. ya mid kalaan doonaya inaan kugu caddeeyo in ilaahay ku jecel yahay, balse adigu aanan ilaahay jeclayn. tusaale yar haddaan ku siiyo, ibni aadamku dadka yay ugu necab yihiin. dadka waxay ugu necab yihiin qofka maalin walba wax weydiiya waxay sii yidhaahdaa. hadda may gartay? bini aadamku waxay ka xanaaqaan, waxay siiday aad uga xanaaqaan, laakiinse ilaahay wuxuu jecel yahay inaad habeen iyo maalin isaga wax weydiisato. hal wax buu ka xanaaqaa ilaahay, ya waxa uu ka xanaaqaana waxa weeyaan in isaga aad wax weydiisan weydo. ilaahay baan ku dhaashee, ilaahay miyaanu ku jeclayn? ya ilaahay miyaanu ku jeclayn? aan su-aashaa ku weydiiye, waa ku jecel yahay. waa haddii caqligaagu shaqaynayo. mid kale aan kugu caddaynayaa oo weliba aayaad cadcad ah in ilaahay adiga ku jecel yahay. tusaale ahaan dadkan adduunka ku nool maarata, ma jiro shaksi ku odhanaya waad igu gefi kartaa, waad igu khaldami kartaa, laakiinse markaad igu khaldato in raalli gelay uun anna waa ku cafinaya, ma jiro. qof waliba feerdla yuurin weeyaan, caasha qof waliba wixii aad ku samayso kaa jaranaya. ya wadiga aad ka den marka nin laga dilo markiiba aanan qabin bay u dilaan, somaad arag? ya nin marku ku caayo maxaad samaysaa? caayadii baad ka aargudataa. waa calaashan waa ku taaban maayahay taaban. laakiinse allihii ku abuurtay, ku arsaaqa, ku khaaliqan lahaa, koonkan iska lahaa, suu duntuu yeeli karaa. muxuu ku yidhi? wuxuu ku yidhi addoonkaygiiyo kolle waad dambaabaysaa, markaad dembigaabto dembigaaga had ku adkaysane ka soo noqo, aniguna waa kuu dambi dhaafaya. calaasha wuxuu idan kuu seeyey inaad khaldami karto, dambaabi karto, balse jaanis kale ku siiyey oo ah inaad dembigaaga ku sixi karto, oo haddaad dembigaaga kaga soo noqoto uu isaguna kuu naxariisanayo, uuna dembigii kaa masaxayo, darajana sare kugu qaadayo. ilaah baan ku dhaashay, ilaahay maanu ku jeclayn? ya sidee baad adigu odhan karaysaa ilaahay waan jecelahay? isagu caddayn buu haystaa inuu ku jecel yahay, kuu caddaynaye. ya mid kale waa kugu daraya, maalin kasta adigoo dambaabaya, bal iminka maalintiisa xisaab 24 saacadood maalin kasta saa eeg, imise jeer baad ilaahay xustaa, imise jeer baad tukataa, imise jeer baad istaaqfirlaysataa, imise jeer baad magaca maskaxdaada ilaahay kusoo dhacaa. marka saacadaha saa loo eego waxaa laga yaabaa gebigaa waa 30 daqiiqo maalintii aan ilaahay magaca ilaahay kusoo dhicinba,
aad istaafsar aad ilaahay u noqoninba inta kale maala yacni waxa ilaahay ka cadhaysiinaya bad gacanta saa ugu haysaa ilaahay kaama ficil qaato oo ma yidhaahdo adaa abuurtay addoonka yaran candhuuftaad ka abuuratay ya sidee buu u dabaabi karaya ya meeshiisa ku jooji ma yidhaahdee jaanis kale ku siiya baab kale ku furaa hadda may garatay irsaaqadiisa kaama goosto aragga indhaha kaama xidho lugaha kaama joojiyo meel yar baa kaa tusaya qodha iyo xerada muuqaalka in la garayo sheekare waa mid aad doonayeen ajar ku raadin wax kalka inay gelma doonayay maalin walba suuliga waad gashaa haddaan khaldanayn maxaad soo dhigtaa ya waxaad soo dhigtaa cuntadii aan cuntay cuntadii aan cuntay biyihii sharaabkii wixii cuntay bal halkaas soo dhigtaa bal ka waran iska 3 saacad 30 daqiiqo iska daa 10 daqiiqo iska daa haddii hal daqiiqo gudahooda ilaahay waxaa kugu joojiyey ka war imaad fahmin miyaa tusaale ahaan dee saxaradan idanka ilaahay bay ku shaqaysaa xubnaha ka shaqaysiinaya qallajinaya kabana iyagoo qashina xagga daba keenaya balkaad ka war haddii ilaahay kugu joojiye ka war maalin keliya haddii ilaahay kugu joojiye ka war oo yidhaahdo kama soo bixi karaa ka war xaaladaad soo noqonaysa ya waa nimco ilaahay ku siiyey ba kasoo leeyahay sidoo kalena kaadida yar ilaahay kaa imanaysa haddii ilaahay maalin keliya kugu joojiye ka war oo keliyaba ku fadhiistaan maxaad samayn kartaa ilaah ku dhashay reerkaad laabta ku garaacanaysa ma kaa soo saari karaya jawaabta umaya kama soo saari karaya ya ogsado xubnaha lagu siiyey wadnaha gaarka u shaqaynaya beerkaa shaqaynaya shaqada adag haya keliyaha aad arkayso ya xubnaha jirka dee midba midka gaar kale u shaqaynaya faa'iidada inoo leeyahay mid kasta bilaash baa ilaahay lagu siiyey keliya waxaa layna faray in ilaahay aynu adeecno keliya ya ilaah baan ku dhashay ma wax beena baa sheegay wana ogahay dad yoba ay soo caayo soo aflagaadinaya waa mid aad doonaya inaad khayrka rabadaanta ka faa'iidaysto oo doonaya caqligaaga inaad ku tuujiyo haddama ay garatay waxayna basharka adduunka ugu daciifsan ugangaansa ya wax kale iska daaya adduunyada iyo waxa dul saaran haddii maanta adiga hurdada ilaahay kaa kaxiyo hurdo kuma keeni karaya hurdo kuma keenayi karaya mid kale waa dhii sheegaya dadku qiyaamay sugaan laakiin qiyaamaha saxda waxa weeyaan qof walba maalinta naftu ka kokota maarta ee nafta yar laga siibo ayaa isaga u qiyaamo ah oo xukunkiisa xisaabtiisa shar iyo khayr waxa adduunka ku lahaa ay soo xidhantay ilaahay dambigeena iyo dambiga waalidkan baa dhaaf aamiin muuqaalkan igu caawinaadii sheer garso in la galayso uma fogaarso waana salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu